xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Buuliburta ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa la sheegayaa in ay weli aad iyo aad u go'doonsan tahay iyo dad shacab oo halkaasi gaajo ugu dhintay. wariyaha Buulay TV Cabdi Xasan oo warbixintani eegaya. degmada Buuliburta ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ka jira xaalad dhanka nolosha ah kadib markii go'doomiyeen al-shabaab magaaladaasi. waxay soo taray cabashada ka soo yeerayso dadka shacabka taasi oo aynaysan haysan raashin ay ku noolaadaan. kusimaha gudoomiyaha degmada Buuliburta Liibaan Cabdi Burus oo ayaa sheegay in ay weli taagan tahay xaaladda nolol xumo ee ka jirta Buuliburta, isagoona sheegay in maalmihii la soo dhaafay 3 qof ay u dhinteen gaajo darteeda. xaaladda weyn ee degmada aysan waa wadooyinka xiran iyo raashin la'aan ayaa ugu weyn dadka inta hayso culays ah. wallahi magaalada weli aad iyo aad ay u kala xiran tahay, labada dhinacba muqdisho way ka xiran tahay, beledweynena sidaas oo kaleenta wax soo galana ilaa ay waqti xaadirkan ma jiraan. aniga sidaa u sheegay sax waa dad xaaladooda liidatana waa ay jiraan. tuulooyinka degmada ku weeraarsan oo laga soo barakacay ayaa jirto oo dhowr iyo 10 tuula oo degmada ay kusoo barakaceen. dadku ugu sii nugul dadkaas oo gaajada qaarkood ay geeriyoodeen, saddex geeriyoodeen. geesta kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ay jiraan lacago ay iska soo aruuriyeen dadka ku nool degmada, hase ahaatee aysan waxba ka tiri karin baahida ka jirta, isagoona ka codsaday hay'adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkaasi. kolba hadda anaga intii karaankaayna ayaana wax ka badanay, hadda awood shacabka ma lihin, laakiin dadka ganacsatada iyo goobaha iyo faajiyada iyo waxyaaba noocaas oo kaleenta ayaa wax loogu aruuriyay dadkii. wax oo baahidooda dabooli kara ma aha, laakiin wax maalin ama 2 maalmood ugu horeen baahidooda dabooli kara waa culayskiina inuu sidii ayuu u jiraa waxay hadda oo samafal ah oo ilaa ay waqti xaadirkan toos wax oo loola qabatay ama yaraatay ma jirto. marka waxaan codsan lahayn sidii wax loogu qaban lahay degmada Buuliburta in dowladda iyo amisom iyo hay'adaha wax ugu qabtaan. al-shabaab ayaa go'doomiyay magaalada Buuliburta tan iyo markii laga qabsaday bishii Maaj sanadkii 2014.